السلام عليكم. chat gpt wax kasta weydii waa uu ku jawaabi doonaa sida qof caadi ah oo kale. application-ka ka yaabiya caalamka ku soo dhawaada muuqaal ku saabsan chat gpt. Chat GPT. Chat GPT. It is called Chat GPT, and it's also Chat GPT or Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT is a computer program. Chat GPT. waxaa laga yaabaa inaad maqashay chat gpt laakiin aadan garanayn sida u shaqayso. hagaag muuqaalkeennan maanta waxaan si qoto dheer leh u dul istaagi doonaa chat gpt, waxa ay tahay iyo sida u shaqayso. bishii la soo dhaafay ee November 2022 shirkadda OpenAI oo ku takhasustay artificial intelligence ama caqliga gacan ku samayska ah ayaa baahisay isbeddelkii ugu dambeeyay, waxayna ugu magac dartay chat gpt, kaas oo ah boot ku shaqeeya artificial intelligence si dhaqsilana uga jawaabaya isticmaalayaasha weydiimahooda ama dalabkooda. inkasta oo ay jiraan aalado kale oo wada sheekaysi ah oo ku shaqeeya artificial intelligence ama maskaxda macmalka ah, haddana chat gpt wuxuu leeyahay awood heer sare ah oo ku salaysan xiriir sax ah, kaasoo eg sida aadanaha oo kale, taasoo keentay inuu ka sara maro aaladihii kale ee dhiggiisa ahaa, heer ay dadka qaar ku tiriyaan in aan la dheelisa karin baahida loo qabo. chat gpt waxaad weydiinaysaa macluumaad ku saabsan shay gaar ah oo aad u baahan tahay inaad wax ka ogaato. kadib wuxuu ku siin doonaa jawaabo iyo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan wax aad weydiisay, iyada oo ku qoran luqad saxiix ah oo la fahmi karo. haddaba waa maxay chat gpt? chat gpt waa aalad wada sheekaysi ah oo shaqadeeda ugu weynay tahay in ay ku dayato wada sheekaysiga aadanaha ama bini'aadamka oo kale. chat gpt waxaa soo saartay shirkad ku taala magaalada San Francisco, gobolka California ee dalka Mareykanka, oo la magac baxday OpenAI, taas oo ah hay'ad ku takhasustay cilmi baarista artificial intelligence ama maskaxda macmalka iyo horumarinta nidaamyada. chat gpt waxa uu qofka isticmaalaha su'aashiisa uga jawaabayaa si hal abuur leh, isagoo adeegsanaya kaydka macluumaadka ku kaydsan mareegayaashiisa. chat gpt waxay leedahay astaamo u muuqda sida kaftanka iyo kartida dadka oo kale. chat gpt waxaa hore loogu tababaray in ka badan 300 bilyan oo kelimadood. ugu horreyn markii la soo saaray chat gpt wuxuu dhowr maalmood gudahood ku gaaray 1 milyan oo isticmaale, taasoo keentay inuu dunida ku baaho. abkan waxaad u isticmaali kartaa inaad weydiiso su'aal kasta oo aad u baahanta inaad hesho jawaabteeda, wuxuuna u shaqeeyaa sida Google oo kale. mar labaad aan ka jawaabno su'aasha ah sidee bay u shaqaysaa chat gpt? guud ahaan chat gpt waxaa loo dejiyey inay noqoto aalad qiimo leh oo loogu talagalay shirkadaha raadinaya inay horumariyaan adeegga macaamiisha iyo howlaha kale ee la xiriira. intaa waxaa dheer, chat gpt waxay ku qalabaysan tahay awoodda habeynta luqadda dabiiciga ah ee bini'aadamka, taasoo u sahlaysa inay aqoonsato iyo turjunto su'aalaha, codsiyada iyo dardargelinta, oo ay bixiso jawaabo ku habboon. tani waxay ka dhigan tahay inay la fargeli karto isticmaalayaasha qaab wada hadal ah, taasoo ku oggolaanaysa inaad u soo dirto su'aalo iyo tilmaamo si la mida aadanaha oo kale. chat gpt waxay sidoo kale leedahay karti ay wax ku barato iyadoo adeegsanaysa isdhexgalka dadka ay la samaynayso, taasoo micnaheedu yahay inay sii kobcin karto waqtiga ka dambeeya, sababtoo ah aqoonteeda waxay ku dhisan tahay wada sheekaysiga dhex mara dadka iyo iyada. tani waxay ka dhigaysaa mid ku habboon in loo isticmaalo qaabab kala duwan. aaladan cajiibka ah ayaa loolan adag la geli karta shirkadaha waxbaarista sida Google oo 10 sano marti loogu ahaa waxbaarista dunida. ugu dambeyn waxaa muran ka taagan yahay in aaladan aysan ka jawaabi karin waxyaabihii dhacay 2022. tusaale ahaan
waxaan weydiinay cidda ku guuleysatay koobka adduunka 2022 jawaabtuna waxay noqotay sida tan waan ka xumahay ma heli karo macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan koobka adduunka 2022 sababtoo ah tababarkaygu wuxuu ku ekaa ilaa 2021 sidaa darteed ma heli karo macluumaadkii ugu dambeeyay ee koobka adduunka laakiin waxaa hubaal ah in shirkadda OpenAI ay hormarin doonto macluumaadka iyo xogaha ku saabsan aaladan si ay u noqoto aalad wada sheekaysi oo dhammaystiran haddaba fikirkaagana la wadaag aaladan ma noqon doontaa mid khatar ku ah xirfadaha aadanaha mustaqbalka dhow maadaama ay qaban karto xirfad badan oo bini'aadamku qaban jiray